ورهان عاو ما جعيريري يوم نقضي موسى يقلبل حالا موسى قلب حالا واحد كعد ديرها موسى قلب بليز ما أنت أنا السبب موسى قلب هاي حاقل دنا يا قرح هناك أنا ما كنت أقول لك موت قلا رار موت قلا وكنت كنا قرح هناك هذا ولي أخودي مين هذا موت قلا ما هذا القرح هناك هذا القرح هناك هذيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل horta tiktok waa badbadana malay nuucul baa ku jira waa meel waala meel maxkamad casriya laga furtay oo meel dadku saa isku dhex yaacay meel qoysaskii xasaska loo wallahi waxaan la yaabanahay laakiin cilaana leegu leeyahay lacagta laga diiday abay maanta muudka user muudka abay عليا هذا الكود مية مود كلا باي وقت حيل دبنا وينوتا أنا كي هذا ما يستطيع أنا قلت سحبيني بابي إيتا ساعدنا أنا ضد قرابة قلبة إنا دير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta ani waxaan dhihi lahaa gabadhaas walaasheeya ee dhibaatadu gaartay ee aan geeri iyo nolol maanta u dhaxaysa ee hooyo caruura leh ilaahay dhibkeeda ha u bogadhayo xasuusteedii maskaxdeeda allah u soo celi caafimaad taamana allah siiyo waa gabar yar hadda sidaan sawirkeeda ka arkayo sideeduba dhib waa dhacaa laakiin qofka hadduu faataxa qaato oo faataxada dhabarkeeda ka baxo isaga nafsada ku burburto سفي عن هذا كيقول دقيسته فاتحة هدا قاعدت أو فاتحة قداشي إذا كبحض فاتحة قبنيس أبقى الوحو يقانوا فاتحة هدي قبل دودي إيضو أي دبان تهي أو أي ند منين نولين أي فاتحة تقاتين إسكت دقاقين إن دب كرير كانوا كسوغ نقاها قبل دان سوتو عنقو أبقى الكو حكسوري عدان قبل دانا كسوري سيدان ميديا هذا التيمت وقضى هرتا أسل كده هداي قبر ولا شيء عتر الشيقاش أنا قمقول سنة مية محيدرين بايتر روحنا جاي هذا وحنا جاي غاني شيقاش مقول سنة مية محو عبها ويل كدل ويري هاي قول سنة محي عد وهر استاجن ويل كإنه قول سنة يسوق ولي بعد قارك وفلان هيستو شقيستو تضبيط بنكون الدولار هيست مية شيقاش وادد شرف له وادد إسقول سنة وادد نلاد الشيء تاسو دب كما تاجنا لكن عد إنا عد بلايا هنا اللوجاي cid ciyaal weeray adiguba gabadhooda ma guursan lahayn yani oo ma aragtay magaaladii laga yaqaan fidnadoodana hadda waa isaga jeedaa banaanka inta fadhiisada qarqaraysid muudka gala baayo cid yaqaano oo caana oo hooyaduba caan tahay oo la leeyahay waa lagu yiro habartaas gabadheeda ha noo doonina ka nabad geli mayne hadday ilaa laga nabadgelaynina hadday socotaa arooskeedii buuqi ka dhacay ilaa ay hadday dhex taagan yihiin gabadhan oo dhaqaale haysato dukaan haysato nolol haysato hooyo ah ayaan maanta dhimanin oo noolayn horta sababtay ciddu u diidayeen maanta gacantooda taalla wiilkana aabihiisa kolay maanta uu ka shalay doona u dhihi doonaa gabadhaas ayta maxaan u guursaday aabbaha iiga digay in anyway anigu waxaan dhihi lahaa sideeduba ma aragtay faataxada gadaasheeda la mara dhibkaanay tima adoo gabar ciddayna gabar dishay oo gabadhu aan maaragtay dhaawicii loo geystay ilaa hadda maskaxdeeda ku maqan tahay hooyo ah nolosheedii oo dhan baaba'day inaad adigu halkaa ku soo noqoto miidiya timaado haddana been sheegto oo adiga aad sharaf moodo inaad been sheegto gabar digsi dibigiisa iswato gabar laga bixiyo digsi dibiya iswato ceebayba tahayba inaad maaragtay adoo gabar sharaf leh oo sharaf lagu soo doontay oo sooriye lagaa bixiyey oo xoolo lagaa bixiyey oo arooskaagii iyo qiimihiisii in alla intii cilaan iyo qurux kugu bixi lahayd iyo wixii la cuni lahaa la bixiyey oo gurigaagii alaabteeda la dhigay inaad been ka sheegto meesha inta soo fariisato aad tiraahdo deenaa laygu guursado horta aday dhibaato kuu tahay fiiri dadku waxa adigu waxay dadu ceebtooda tahay dadna caydooda tahay adaa iscaayo haya baahidana maanta inaad social media ka tuugsato waa faataxadi ila faataxa la qaatay gadaasheeda lagama baxo adiga oo maanta maaragtay intaasoo hantiya lagaa bixiyey maanta dhibaatada aday kugu dambaysayo kombuuto tiktok joogo tuugsaayo wala faataxadi cause cid yaa weli ku dheganta dadkiyaa weli wax ka sii sheegay haddaba ani midaan idiin sheega hadalkayga lagu soo qatimo abgaal faataxada haddii laga baxo usbuuca ka tegaa yaana caarsa imaana intaad dhahay wata caarsashaya imaana caarsasho hadday timaado waa la isjarjaraa
hal cidaana ooyinta ku dambay doonto sababtoo ah iyadoo qof reer ay gabar sariirta u saaran tahay ee dhibaatada aad gaarsiisa ay sariir uga saaran tahay oyna dhimanay noolayn inaad soo baxdiin cidaan la hadlaanig qabiil la hadli maayo halkaas haddaa inta timaadaan aa wax sii dhabjasaan dhamjaaq bilowdaan ha idinkana waa la idin imaa balaayana idinka raaci doonta markaa hal qofaad tartiiq qabriga la geeya waxaan ka digtoonaadaan dhilaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هاي رور أرتيست سودو رور سودو gabadha wadaya weyneybo waa dhowahay abaayo dhammaantiina aadaa u salaamantiin horta marka kow teeda labaad anaga dad soomaaliyaan nahay ma fahanteen horta dhammaantiina hadalkiina waa dhegaystay maanta hal qof oo meegaas iiga soo bixi karo oo idhihi karo wiilka anaa la hadlay hadal la hubo anaa ka haayo codna anaa ka haayo idhihi karo meesha ma joogo waa kow tan labaad cid horta meesha tuugsi ugu imaaday ama gaajo hayso ama wax u baahanay oo meesha maanta joogto ma lahan ma fahanteen gabar shiiqaal rabbi iyo rasuul leh maanta dad uma baahno inay wax siiyaan ama inay wax weydiisato uma baahno meesha waxay u tagtay ama reasonkay u tagtay in wiilkaas familkiisa la helo siday maaragtay ay madaxeeda ay ugu qaadato oo loogu furo hadalkana si fiican haloo dhageysto hadday laba gabdhood isdileen shalay oo maaragtay midna tan kale dishay kolba laba ul hadii la isku dhufto mid un baa jawaayo ma fahanteen haddii gabadhiina markaas oo ayada dilka loo geystay oo laga raayay koreebo meesha wixii dhaceen way dhaceen oo intaasoo bilooyinaa kasoo wareegatay hadda anaga waxaan qaba qaawinayno ama waxaan meesha u imaanay ma ahan dagaal labada gabdha ka dhexeeyay meesha looma imaanin dagaalkaas sheekada la haayay aa lagu keenay mooyaane meesha waxa loo imaaday labada gabdha isdileen ma ahan de hadday dil la dhaho ama dagaal la dhaho cid ugu sareysa haba yaraatee ma jirto qof walba ciduu ka dhashtay qof walba tuluu leeyahay qof walba walaalaa la dhashteen ma fahanteen meesha waxa loo imaaday ama reasonka loo imaaday waxay tahay in gabadhaas ay dalbatay in wiilkaas laga furo maadaama xuquuq oo dumarnimo uusan siinin waxay diinta faraysana uusan siinin waxay ka dalbatay in tolkiisa loola hadlo ama wiilka la keeno sida loogu furo gabadhaas wax kaloo meesha yaalo haba yaraatee ma jirto maadaama anagana wiilka la hadalnay aan gabadhii anaga waa awooday ani inaa qol aan soo furo aan falaqeeyo ama wiilka wixii oo codad aan haayo ama wixii sawiraan la soo diray inaan meesha aan dhex keeno laakiin taas gabadhnimadeena ma ahan inaan dad maaragtay fadeexo aan balaanka soo dhigno ama codad dad aan balaanka soo dhigno ama hooyo qeelinayso ma aragtay maanta wiilkeeda caasi waalideen uu ku yahay inaan codadkeeda balaanka aan keeno taas anaga diyaar uma nihi mana rabno ma fahantay haddaan rabnona waa samey karna laakiin taas ma rabno because dad wada dhashtaan nahay dad walaanaan nahay shalay laba wiil iyo gabara yani is calfadeen oo is guursadeen wanaagii shalay haddii meesha ka dhammaatay wanaagaasaa lagu kala baxayaa ma fahanteen marka wiilkan anaga waa lala hadlay oo hadalna waxna waa isla meel dhignay hadduu diido si nidaam inuu ku furo si sharciyana loogu furaa waxay diinta farayso gabadha waxay sheegtay waa sax biil ma uusan siinin intaasoo bilood waana lala hadlay hooyada maamada gabadha dhashaa lala hadlay wiilkaa lala hadlay codaa laga haayaa wax walbaa laga haayaa ma fahanteen so hadduu diida ase inuu furo gabadhan ileen gabar ma ahano ma aragta maanta wiilka u baahano ilaa waa raba ayadaaba dalbanaysa waxay meesha u imaaday ama reasonkay meeshan ila imaaday in laga furo wiilkaas asoo diidan waliba u dhahayo ana hadda qoraal ahaayo waa ku tusi karaa asoo diidan inuu furo maadaama uu asi maaragtay wanaag loola imaado wanaagaas hadduu diiday meesha waxaa taala sharciyaa yaalo diinaa taalo oo na furayso maanta ragga ama ninka dumarka uu qabo hadduu wixii shareecada islaamka oo dhigaysa uu kasoo bixi waayo in diinta islaamka waxay maraysa in la marsiiyo marka sida caada meesha dagaal ma yaalo anaga gabadha waxaa u wadanay falaqan gabadhaas codkaa kusoo noqonayo in maaragtay falaqeen la sameeyo ama codad dad iskale meesha la keeno ama dagaal oo mar hore dhacay in meesha lagu hadda lagu soo falaqeeyo meesha looma imaanin waxaa gabadha u wadanay maaragtay in wixii aan si tartiib loo xaliyo oo si wanaaga loo dhameeyo si dad walaale oo shalay gabar iska guursadeen oo wiil iyo gabar iska guursadeen oo maantana loogu kala tagay
صلى اللهم وبارك نبينا نكسلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آد بإذن سلام يا دمانتينا gabadha su'aal weydiina horta walaashay saa sheegto run waaye laakiin anaga markaan nahay gabdha Soomaaliya markii gabadha la guursanayo reerka gabadha lacagta loo keenaa reerka gabadha markii lacagta loo keeno qurxinta gabadhooda lacagtii dahabka wixii arooska lagu dhigay reerka maamulo maadaama wiilkan hadda ehelkiisa ay leeyihiin $30,000 aroos ku baxday see lacag cilaan saara loogu yeelan karaa mid kale habar yar codkan ku soo diradaar gabadhoo dhahaysa gabadha leegaaga waday because idinka arooska markii laga soo gabadha waa disheen fiidiyoyadii hayna idinkoo bac madaxa loo gelinayo ee gabadhii la waalayo madaxa laga tumaayo ee hooyadii afarta gabdhood iskugu tagayaan marka gabar $30,000 laga dhiibay see jeefkeeda deen ku noqon karaa soo kaamiristihi oo reerka inay ayaga lacag codkan ku sida muudgalkan ugu dambeeyay habar yusuf waa u dhameynaahe marka maadaama familka waa soo gaabina maadaama familkii lacagta ayaga loo geeyay gabadha hooyadeed laga rabay inay gabadheeda qurxiso see lacagta cilaanka loogu yeelan karaa reer dhan ee $30,000 loo geeyay waayahay maadaama su'aashaas ay weydiisay abaayo macaanto si sharaf leh anuu kaaga jawaabayo waxaan rabaa cadeyntii 30,000 markii la geenayay video hadii la because gabadha markii wax loo geenayo ama meher la geenayo kaamirooyina shidan wax walba meesha dad baa joogo tolba isku imaanayo qaraaba isku imaanayso asxaaba isku imaanayse $30,000 meesh laga geenaye cadeynteeda u baahanahay hadii cadeynteeda okay habar lamiis arooskiyan ku soo diraa gabadhiyo taajka arooska waa la dhigay arooska ma u baahan aniga waxa u baahanahay 30,000 markii la geenayay la kala gadanaya roora guri ma la kala gadanaya sawir ma lacag la iska qaada Suuriga anaga dhigayso abaayo hadda sawir la iska qaada hadda ma bilaabanay Suuriga oo sawir la iska qaadayo dhageysano horta aan is dhageysano anaga hadda waxa joognaa adduunyo heer casri waagi hore hooyooyinkeena la guursanay ayooyinkeena la guursanay ma faanteen waqtigaas waxay ahaataba wax la iskama sawiri jirin wax la iskama qaadi jirin laakiin hadda anaga hadda waxa ku jirnaa Suuriga lama sawiro ilaa hadda Suuriga lama sawiro xabiibti wixii wadaadii la hordhigay qof sawirta ilaa hadda ajnaa abaayo idageyso maya wax laga bixin kuma dhihin ani laakiin rumaynaysa gabadhaas no abaayo idageyso hadalkayga si fiican u dhageyso hadalkayga si fiican u dhageyso ani 30,000 ku dhaani kuma dhihin lacag lagama keenin abaayo si fiican ii dhageyso isku day inaa ii dhageyso horta su'aal baad rabtaan inaad gabadha weydiisaan mise dood baad rabtaan maya iga haday dood rabaan taas waa gooni idinkaga jawaabayso maantiin ayida gabadha sug su'aala ku weydiinaya muudka iyo gala marka aniga muudka iyo gala roora meek isiya abaayo su'aala waa la weydiin karaa hadii rimbayda diga karto roora yaa qasbay gabadha soo tuurayso meesha roora cid qasbayso ma la way hadasha su'aalo waa la isweydiin karaa waa abaayo su'aal uga keenaysan su'aasha markay ka jawaabtaan waxa roora may maqle lama taabtaan ku soconay abaayo mis waa ka baxdaadi ana waa sheeg gabadhana waa sheeg su'aal roora taabtaan ii kaadi roora qof su'aal uga fadhida ma laabay macanta anaga gabar baa naga waalan ama fadin waa lagu dadsiina deetaana sheekada ama aan ku dhameeyna sida ay tahay rooro hadii ay dhinacaad ka rartaan anaga dhinaca ka rarnahay inaad fahmaysaa xiga abaayo no way roora inaan maanta meel la soo fadhiisato no inaad ii kaadi inaad meel la soo fadhiisato odayaal lacag kala qaaday anaga ma guri baan kala gadanaynaa mase maxay ahayd dad baa ahaa dhaxal loo kala qaybinaya wasran gusiyo maxaa ka qaldan hadalkayga si fiican u dhageyso abaayo hadalkayga si fiican u dhageyso adaa dhahday ileen adaa dhahday moogta 30,000 la keenay yes gabadhiina adaa ku xaqiijinaya inaan markii la keenaye sababta waa ognahay dhageyso roora dhageyso abaayo ismaqan meeshaas dhageyso abaayo yaa dhibana amaanta anaga dhibana amaanta furiinkana maxaa social media u imaanaysiin oo cala calaysiin oo fiiri su'aal ku weydiina adi ma dibatido gabadhayna waa u jeeday gabadhiina indhaha mirig ugu sii furiin haday u baahanay hadaa dhiban tahay hadaa dhiban tahay meelaha waxaa jiro ninkee u bugtaa inaad abaayo alees dhageysto marka alees dhageysto hadaa anaga uma baahnaysa haday adi aad dhageyso
horta si fiican idhageyso hadda adi aad dhehaysid tiktok meel la isku furo maahan meel la isku furaa jiro meesha la isku furo taga tiktok meesha ma aragtay hay dhageysahe isdaba taagan marka tiktokna ma ahan meesha ma aragtay dagaalada lagu xaliyo ma ahan hadda adi aad rabtid inaad dagaaladaada xalisid waxaa jiro meel la dhaho saldhigaa jiro meel la dhaho police station aa jiro abaayo aad waxaa dacwo aa leedahay ma aragtay meeshaas ma aragtay la aad haddaa dacwo aa qabtid هاوي بلا هذا الكينا فهمت أباي اسكتي رورا وحد هذا أباي دقيسو هذا أيضا وحيد هذا أيضا وحيد ماشي لا سكفر هذا المحكمة لما لا إذا كان هذا ما رأيت أوبا هنتهين مال أو ما رأيت قبل هذا ورا ماشي بوقي نقني هوي بلا عم بالله متاعك هل قف روراها لا قفتك الموت كا عجزت ماشي بقول هل ابايو فينا انا هل قفا اي صباح هل قفا الى هذا شو كو ما تهي تيدا لباد انا ريزك ماشي او سو كري لبا غبر لبا دوعلو اسدلان انا ماشي uma soo korin hadaa laba doocil iskugu hilinaysiin taas anaga shaqadeena ma faantay laba gabadha isdilaan tii la dil ma aragtay dhiigeeda la aruursana saaxib si toosa ana hadda ku sheegoyaa hadda meesha dacwada furitaanka ma ahan hadda dhehaysidna ma aragtay idinka meesha dacwada ma aragtay oo dadka isku dilaan ma ahan station ayaal saldhigayaalaha la isla aado si toosa salaamu calaykum waraxmatullaahi aada idin okay marka raara marka mida ku sheega abay dhigeyso meesha horta dacwada waxa keena waa gabadha sheeqaal waxa caawa public soo istaagana waa iyada annaga hal gabar disha kama hadlayno video cadeena lahaaya hooyadii reerku u weyneed oo bac gacanta ku gabadhi madaxa u gelinaysan haynaa gabadha arooska loo dhigay iyo sawiraadeedii iyo xafladii arooskii fiidiyowyadii dhan xamdi iyo fartuun waa idin soo diray lamiis adigana waa kuu soo diray way aanoo tuuraysiin idinkaana soo qabsaday gabaray meesha caayma taal lamiis ay gabadhan waa waaranta qalbigeeda adaa hoos istigay gabadha cudur ahaayo hoos istigay abay caay lama rabo dee rooraba hadda ayda degdeg cid ku tuuray ma la caayda meegana sugo no way roor kaligeeda artina afartan qof wax ku weydiisay fiiri afartan qofood waxba ma ka fahmaysaa walaalay muuska gal ma dhigatayna waxa waa inaad afartan qof ugu dhamaysan hadalka marka dhamaysan waa lagu siinaa muusanaaga dhibanta adi waa dhibanta caafimaad Allah ku siiyo abaa gabadha way xanuunsantaa lamiis abaa hoos ma naga geysid qofka normal uma hadlaysay gabadha ku goobtay fiiri ku dhiglayaa habar yar meega heegaaga baxda naagta habar dhiman oo wareersanaatee habar dhimanimaka habar yar naagtaan meega heegaaga baxdo abaa hawi bil abaa wax yar muudka ii gal marka ani marka meega marka isiya nimayo runaa la isku sheegaa gabadhan hooyaday gabdhihii dadkii oo dhan ku wada goobtay bacaa madaxa loo geliyay 8 qodob madaxeeda laga jeexay hooyo shaqaysanayso dukaan u furan yahay caruur haysatay aheed gawar umula oo 3 bil cunug aan dhameyn haysatay aheed waa lagu goobtay wiilkeenina walaashii sida la yeelo markuu arka gabadhiina uu ka tagay because reerka dhaqan ma wala waxay reerka macal hooyadood wada cararayso dacwada idinka keenay hadaa tartaan meelaha la isku furo maxkamadda islaamiga taga gabar ina adeeradeed intay bixeen wiilka madaxa uga soo qaadi waay roora hadda waxay tir qoraal iyo cod haya codka haysadar annagana fiidiyoyadii keenayna arooskii gogashii meeshii la dhigay wiilka xataa waxa hadda xataa isoo gaartay lambarkiisa waa la ii soo diray ma faham hadda aniga telefoonkayga dambi rabina ani hadda xataa waxa isoo gaartay wiilka markuu gabadha guursanay iyada meeshii lagu qaatay jooga hadda tan soo qabtay Maxamed ala dhaha ii soo qabtay wiilkaas maxaa qaldantay محمد ما waxay ahaataba waxa la yiri dib qaba intuu san qaylin dheef qaba qayliye gabardhana waasheen gabar la furaad aad ratiin idinkana wiliga xataa ma idin la furaayo gunaatiin loo qabo waa laga ma la furaayo because gabardhana oo shaqaysanaysa madaxa bir ugu teenad waasheen shaqaalay sida habar gidir idin gubtay marka idin la gubo idinka taabtaan iyo hawibila naga daay caadi ha loo dawladey naga daay naga daa dadka kale siiya ma rabna meeshaan intay soo kortay ciidan u gafeenaa hooyadan naga daay xabba dhulka ka jirtay naga daay kuluusta eed ciyaal weeray naga daay kala hadalka siiya bismillaah meesha ciyaal weeray wax ka guursanay naclad baa ku dhashay habar ciyaal weeray wax ka guursanay bahdilay ku dhashay hawibila naga daay soo soo degta naagta ma joogtay ee dadka kale siiya dareen mi maqlay ana hadda wallahi wiilka walaalkiisa la soo hadlay indhageyso wiilkan
maqal wiilkan Ismaaciil Wardheera adeer u ah Xamdi Cusey hadaa ka saysid aabiis xataa uu uga digay reerkan waxay yihiin la yaqiin darban oo dhan aanay ka ahaayeen muhiimaddu waxay tahay walaalayaal oo sawirada idin soo diray gabar arooska loo dhigay fanaaniinta wuu madax adeega wuu guursaday sooma aabiisa u diidayaa fiiri Xamdi iyo fartuun sawirada idin soo diray fiidiyoyada waalidkiisa ku dhagan inta lacaga dhiibay abaa dareen abaa hal su'aalan qabaa sawiraan soo diray fiidiyoyada arooska idin soo diray ee abaaye ay ii soo dirtay xafladii meesha ka dhacday fanaaniintii hobaladii ka heesaya idin soo diray nin inta qarasha galay nin lagu yeelan kara ma yahay kaamiriste iyo lacag cilaan iyo Jeff Dane iyo ma lagu yeelan karaa ma anaga Soomaaliya joogna saaqan dalka alaab ka soo qaadanayna nimay runta la isku sheegay reerkan way qaldan yihiin gabadha waa ka rumaysanayna markii la guursada ka bacdi uu kacay wiilku saasa deenkay kirada lagu yeeshay laakiin arooskayga asaaskiisa deena wuu ka tagay guriga dhan oo uga dhaxbaxay dareenay su'aaladi weydiisay gabadhan siiyano mutaasiya baayo lagu siinaa inaad erikaad lama taabtaane albaanka gabadha guursada miya maxaa gabadha loo diiday tir ani waa kaaga jawaab waxaan ku rimay sheekh waa dad sharaf leh waa dad walaaleen oo nala dhashay waana isguursanaa ma u maanay sababta isma guursan kala helo dadka madax umaleys warkiya waxa umaleysaa inay lacag waay kala orda naga daay bilaa caleeg Leon hadal horta waan salaamay dhamaantii walaa wuxuu u buuxa maxaa ka galay idinka kor saar markaas hadalka isla heli waayeen soo saar gabdhaha kale dareen soo saar distiga boqol qof ku jirto abay meega kala helo dareen say u dhees weydaash war meega kala helo Leon hadal hadaadi inta la soo badan maya horta ani gabadhaas waa dhageysanay maantay waxa la dhahay sheeko kastana labada dhinac ee leedahay ma ogtahay ayada dhinaceeda waa dhageysanay dhankii wiilka in la dhageystaa dhiman wiilkina ma uu soo fadhiisan daara cali soo markii dambe markuu wacayna xoogaa way is afdhaafeen hase ahaatee gabadha markay hadlaysa way sheegtay barbalenkan way sheegtay familka inay isku dhaceen way sheegtay gabar in maxaa la dhahaa dhibaato loo geystana way sheegtay ma fahantay ayada afkeeda ka sheegtay iliga afka wax laga sameeyay way wiilka anaa keenayo biri anaa keenayo oo halkaana lagu wareysanayaa qolka indhaha lagu haa inta falow ii ahayn 400 iyo xoogihiina soo falow gareeyay hadda familka labada famil isku dhaceen way sheegtay hase ahaatee wiilka wuxuu eegaya gabadha inuu rabo inkastoo family problem uu jiro gabadhana sidoo kale ninkeeda inay rabtay oo egtaa ma fahantay labadan qofood inay rabtay oo egtaa Allah hooyo macaanto muudka gal akhay dadku dulqaad ugu dhageystaan muudka gal ajaamay يا رسول الله قال ولا شيء قال عوض ميك انت لو فري هردي مايان كسعو marka walaalayaalow yuusan warniga tagin yaa la aytamin dadka ehla la yahay qaraaba la yahay arxina la yahay labadan qofood way isguursadeen waxa laga yaabaa inay isku dhiman yihiin wali nin iyo naag waaye nin iyo naagna colna ma ahana liire maxaa la dhahaa bahalkina ma ahan gabadha ninkeeda way rabtaa say u ag tahay ninkana naagtiisa waa rabaa suu u eg yahay barina inuu isku noqdaan awlaad meeshaas ka timaada laga yaabaa yuusan warniga tagin labada dhinacba yaa la aytamin ilaahayna ha kala qaboojiyo intaas aniga dhahaya ma fahanti wiilkana ma caayay gabadhan kuma xad gudbaayay ku socda marka hay muudkian ka soo bixi waayaba okay saameeg u kala helno dareen qalajee hadal abaayo marka maya weydiisay anaana usoo celcelisay walaashay qurux wanaag abaay macaanto waa sax hawiye bila codkay shiday baa waxaa ku jiray ciddaan isma geyno oo isma guursanee wiilow ka joog ayuu dhahay odaga wiilka dhalay soo anna waa ii cuntama weyso waxaan kugu dhahay idinka dhana idi weydiiyey oo kaalay sheeqaasha isma guursana miya isma geyna miya asma aan dareenay habarta gabadha dhashay baa salaaga ah oo ciyaal weera ah wiilka aabiisna wuxuu ku diiday maadaama habarta ay dhib haye sug macaantooy ilay qurux wanaagaa rabaa inay qalafaan isukee macaanto waa fahmo waxaas dareenay abba qurux wanaag marayba ka jawaabdo inuu soo celimiyo maya maray waxay ku soo celisay dareena i weydiisay su'aashaas waa sax waa weydiiyey laakiin maadaama aniga caawa igu horeysa waan yaabay because aniga walaa been idima sheegaayo sheeqaal aniga meesha ka imaada ma deganaa dee runtaa fiican
هذا يبقى dareenay شغال ما دقنا هلا برسوق هذا جوكتو ما in فهمتي adeer adaa hadalka إن عادي هنا موجود may dareena hal daqiiqa kugula شوف dhuufiso أباي waxaan وحن ku كنت هاي fahansiiyo حالي waxaan Marka noo badal sawirkan kuu soo markaas diriyay dareena abaahay. anaa hal daqiiqa سؤال kugula dhuufo بويدي hal فارت daqiiqa يقي waxaan rabay inaan ku fahansiiyo labaad cadeymihii maya iyo feeri maadeen dhegeyso daayir iyo wiilka waa iswaceen wayna isla hadli waayeen oo sababtoo ah waxa waaye waa arrinta waa isfahmi waayeen waxa kaloon idiin sheegayaa waxa tahay ninkan nin raga waaye naagtaasna asagaa qabay xaaskiisa asagaa shalay guursada oo shukaansaday waxaana waxaa la rabaa moogtahay in maaragtay waxyaalaha meel qaldan laga fiiriyo maaha waxaa horta in dhanka positiveka laga fiiriyo dhanka negativekana laga fiiriyo waxaan qabaa anigu labadan laba isqabta waaye welina isma furin nin iyo naag waa horta gabadha iyo wiilka waxaan qabaa in meesha laga dejiyo maya horta cabdullaahi adi wax ma la socotaa xabad lama socdo aniga okay anaa marka kuu sheegaya dhegeyso caawa gabadha qolka daahir markay imaaday waxay tiri nina aabahay u keensaday iska daayo yiri anaa rabaan dhahay ninka abgaal waay waa wacaysle waa cali gaaf ninkiyaa laygu diray ninka markuu i guursaday kadib waxay ku dhahday arooskiyaa laysku dagaalay markii laysku dagaalay gabar abgaal oo in adeertiisa iyo walaashay iyo gabdhihii isdagaaleen waxay dhahday gabadhii abgaal faruurtaa laga qaniinay anoo 2 maalmood kaliya lay qabo kadib waxay dhahday gabadhii way waalatay gabadhii markay waalatay reerka abgaal aabahay u imaadeen waxay dhaheen gabadheeni way waalatay daawi iyo waxaan la raadsanaynaa arrintaana waa idinkugu soo laabanaynaa ninka markay gabadhi waalatay reerkiisa iga watay oo asna wuxuu u yiri isbuuc kadib aan kuu soo laabanaa iima soo laabanay tiri uuraan yeeshay haddana dhahda fiiri ilmiya iga soo dilmay tiri iyadoo dhiig iga socdaan shaqaynaya dhahday guriga aan degnaa ijaarkiisa la igu qabsaday dhahday ajansiga guriga kireeyo ninka hadaan waxa wuxuu leeyahay tir guriga kiradii waan ka dhiibay korontadii yaa la goostay tir biyaha la iga xirtay familkayga iskaaga tagay wiilka waxay tir dib ima soo laaban dibaan waxaan ku ogaaday tir jeefka iyo fadhiga oo ii dhiga oo igu guursaday inay deen ahayd waxay ku dhahday kaamirista arooskayna duubayay lacagta deen ay ahayd dhahda anaa hadda la igu heystaa cilaankii la ii saaray iyo dharkii arooskii la ii geliyay xafladii deen aheeday tiri maanta anaa laygula dhagan yahay ninkan ehelkayga markay u tageen oo in layga furo aan rabane wuxuu dhahay tiri gabar kama fiicno in layga waalan abay waxay remote-ka igal marka anaga qolkaan markaan soo furanay waxaa noo yimid wiilka ehelkiisa iyo dadka goobjooga ah waxay noo sheegeen arooska markuu dhacay in la isdagaalay gabar absugaa iyo gabdhahan ay isku dhaceen ee gabadha la yiranaya kaala banaanka iigu soo bax ani kaliga ayaa ku imaaday markay banaanka u soo baxdane gabdha la dhashay iyo hooyadeed inay gabadhi dileen bac madow madaxa u geliyeen fiideo ay ka duubeen fiideogu waa noola soo diray whatsappka kugu soo diraa gabadhii oo la garaacayo ee bac madow madaxa loo gelinayo gabadhii madaxa jug ka gaartay 8 qodob madaxa laga tolay way waalatay isbitaal la geeyay hooyo 4 caruur haysato dukaan gadatay ahayd dukaankeedii la gaday caruurteedii iyadoo maanta Soomaaliya joogan guriga hooyadeeday geed kula xiran tahay way waalan tahay wiilkii maadaama dhibaatada ay dhacday asagana naftiisa uu cabsaday gabadhi sidaas uu uga tagay dhibaatada marka meesha taalo waxay tahay gabarna waxay leedahay $30,000 googashiya la geeyay wiilkana waxa la dhahay Ismaaciil Wardheera adeer u ah waa wiil la yaqaano lambarkiisa lahaayo hadda la keeni karo muhiimada meesha taala abti marka waxay tahay wiilka maadaama uu lacag badan gabadhi uu ka bixiyay arooska la isku dagaalay reerkii ana kala herin gabar abgaali intay garaaceen waaleen maanta xamar ay guriga ay ku xirxiran tahay hooyadeeda waayeel hayso adoo mahadsan warka waa feeri warka waa turur xisabad ka fahmi maayo turur marka abti anaga dhibanaa naag la furaayo furiin rataa sheegoosaa oo deen lagu leeyahay anaga dhibanaa abti oo gabar naga daqran gabar anaga waalan hal mar aan wax ku weydiiyo horta wixii waa isku waa ii tururuxisay hal xabo live ka dhaqan wax ku weydiiyo gabar la dilay wixii waa isku waa hadii u kaayda hadii live hal mar aan wax ku weydiiyo soo qabanna hadee wax heeri maxaa la dhahaa gabar baa madaxa bac loo geliyay gabadha inay absuga ahayd baa sheegtay aroos in lagu dilayaa noo sheegtay waxaasoo dhan goormay dhaceen ninkaana meeshu gabadhu xaggee joogtaa kow horta gabadhu xaggee joogtaa Afrika darbanay ka dhacda arrinta South Africa gabadhu joogtaa miya arooskana South Africa ka dhacay wiilka South Africa uu joogaa gabadhii la dilana South Africa lagu dilay xamara loo wada bal horta noo kaati hadee wixii waa iska daba qaydaysin one by one aan rabaa inaan idin weydiiyo gabadhu South Africa ay joogaan iyo wiilkuba
صح oo isqaba soo maaha ها وشاك هبر الرامبا أنا وشيء يا كلا قلنا هاي هبر يا هاي okay dhibku meeshu ka dhacana waa South Africa soo maaha ها okay meesha gabadha lagu dilay ee waxa weeye gabadha lagula goobtay madaxa bacda loo gelinay waa South Africa soo maaha ها okay ayada marka ay intaas dhacday meesha dawladda ka jirta nidaamka ka jira see uga carari kara asagu in adeertiisa oo Captain u wadiyay isbitaalka dhimirka la geliyay wiilkiina dib dambe reerkan ugu ma soo laaban aniga hadda sidaan halkan ka maqlay anaga fiidiyoo aan noola soo dir gabadhiyo la dilaayo oo bac madaxa loo gelinayo muhiimadda aan ka hadlaynaa marka abti waxay tahay inay fahanto isku day okay abti waa fahmay feeri gabadha xaaskeyga aniga hadday dhib geysato horta anaa ka mas'uul ah xaaska ma ahayna sodogta iyo dumaashiyaalka waay ayada soo problem kama bilaaban arooska Brownbro problemka ka bilawday ma gabadhaanu problem ka abgaal iyo shaqaal abgaalkiya badiyi shaqaal la isku dagaal arooska gabadha la isku dagaalay arooska gabadha la isku dagaalay ha marka arooska marka la isku dagaalay warka ma ku soo koobaa gabadha markii la dilay kadib abgaalka iyo shaqaalka xaal mastur waa la fadhiistay gabadhii la dilana faataxa laga maray may fahanto warkayga fiidiyowga hadda aan WhatsApp-ka kugu soo diro gabartii oo la dilay wali mid kale waxa jira iyadoo bacdi madaxa loo gelinay ayagoo abgaalka fiidiyowda haystaan bay faataxa qaateen oo gabadh cid ma dacweyno shaqaal gabadhii Soomaaliya loo waday balbaleenka ku dhacay umula ahayd markii dilka dhaawac gaarayay ilmo yare ka waalatay ilmihiinu markii dambe way saqeereen aliin ultimo hadda marka iyadoo ninkii wuxuu sameeyay gabadhan wuu ka guuray markuu ka guuray tira fur markaas uu kuma furaayi waayo gabar kama fiicno ananka gabar dartii nooga waalatay hadda gabadha qolka daar caruso waxay u imaado waxay rabtaa ninka in laga furo ninkina furiinka waa diidiyay intaas waa hadalku gabadhan hadda gabadha dilaysa waa shaqaal miya oo meesha gabar ma dilin la miisaal gabar ma ahan abay ana u sharxay Abdullahi wax yar wuu fadhiisanaa u malaynaa mise dadku san fahmin okay maxaa qaldan waxaan fahmay Abdullahi oo gabadha aniga naftirka caawdo waa saray gabadhan dilka iyadu maba geysanba gabadha lameysay dilka maba geysanba gabadha hadda garsaarka cagaar la dhashay iyo laba la dhashay iyo ayada waa ku jirto iyo hooyadii laba la dhashay gabadha iyadu ku jirtay mise hooyadii walaasheeda geystay hooyadii walaasheeda waxay geysteen ayaga geystay moogta la mis anigu shaqo ayada way ku jirtaa waa ayada laba la dhalatay iyo hooyadeed waa wax ma geysan aan isfahanno please meeshaas waa ku soo celinaa lamisay ma walaasheed iyo hooyadeed iyo ayada israaceen saddexdooda may maqle muudka gal bilyan dhaana joogto dadka isbitaalka gabadha gurigooda ku haya bilyan dhaan taawaan fadhiyo markay sheegayso hadda hadalka marka Abdullahi uu muraajaco ku soo celinaa aan fahmay bilyan dhaana soo baxo bay ku soco gabadha hadda iyadu gacanta geysan shaqo kuma laba dhibka dhan gabadha stobay ku jirtay waxa laba habeen bay guriga ku jirtay horta niyo wax inaan fahmaan rabaa gabadhan hadda gabasaarka ee meesha noo saaran ma gabadha dhibka geysatay ba aan ku faansiyo dadka dhan hurdaa gabadha waa gabadhii oo shaqaalo ninka qabo ninka in laga furo rato dhibkan ayada madaxeeda ku dhacay wara Abdullahi ana la fahmay wallahi oo ka soo Abdullahi ana ku faansiinay muudka galaniyo Abdullahi yare hal waxa su'aalaha ana idin weydiinay iga jawaaba bas waxba ay faansiinaha okay su'aasha idin weydiinay si sax iga jawaaba okay bilyan dhaana kugu wareeja bilyan dhaan gabartii oo joogto bilyan dhaana abba wiilkaas u jawaabaan muddo ku galaa su'aal idin weydiinaya isuga tartiib su'aasha idin weydiiyaba horta saan isku fahanno waa in horta aan waqti isiinaa su'aasha aan idin weydiinay iga jawaabtiin gabadhan hadda meesha saaran gabadha wiilkeenu qabay ma tahay mase ma ahan way tahay okay midda gabadha diishatan miya هاي بلندان walaasheed waay Abdullahi walaasheed la dhalata waay marka tan maxaa ka halaysan maxay rabtaa tan horta Abdullahi oo meeshaan horta waxba isku dhex qasqasan koowde
gabadhan oo meesha saaran oo qolka daar cali soo caawa imaatay waxay tiri waxaa rabaa nin wacaysla ah oo abgaala ayaa waxay tiri i xumeeyey 9 bilood oo kiraaha la igu leeyahay arooskii iyo adduunkii iyo wixii oo dhan deembo ku qaatay nin Ethiopiana ayuu maxay etooday ka deensaday lacagti kambanigan igu dhagan ninkan in la iga furo u baahanaa iyadoo dhehaysa horta maqlaay ma garanaysaa أنا ورت فلك ماشي وكذا عمل ودو جبدا حنوصد دوت ماشي لكينا عن شوجا جبدان أروس كذي أو مركي أروس كده عاي عشاك صومالي ناجيه عمل السماين برامبرا ماشي لإس برامبرا ولا إس عاي هرتا برامبرا هرتا ماشي كده عاي برامبر كمركو ماشي كده عاي كده شيخ الباي ساقو والو كلا تجمع فهمي سا ساقو ويلك واحد صادر سنة مي مقشين أبا قلك كجرا ساقبت ليه عبد الله مي مقلين قصة ماشي مرك برامبر كهبين كشاك ناجيدا إسك هذي تلفون على إسك عاي جبدان أروصدا جبر لا دلتي يويلك جبد المقدريين أيا إسعاين مركي إسعاين جبدان وال مركي الإسعاي وحالي رميل هبل إسكو كان فاميل كان أو جبدان أروسكا يجبد والن دونتني محيطه ده درسي أهاين كدي بعدين ماشي بناك الإسكو تجي جبدان تضبي كوجرتي لما بريال قبابة أو أروس كذا كسو بريكت جبدان كلنا ولاله هذا لما جبدوه إذا لا تيجي هبريرت هذا يهوي هذا أو ح سقوط تجين جبد أبجال أو عسل سقوط تجين وركي جسف عنا كوفة يفهمها جبد والد دلي وموله هذا I think لابل عمل حلي جاس دلنا هذا بس ده بلادات كدوه لكن لابل إلا سده بلا هذا جبد والد سقوط تجي فيديو بكدوبين بعد ما ده حقولين ماشي يا جبد اللي وجر دلي adiga dhowr iyo 10 qodob camal ah gabadhii ku dhacday oo abgaal ka bacdi gabadhii waxoogaa way isku dhax yaacday isbitaalka xagga waa laga soo wareejiyay kibtoona la keenay wiilka arooskana wuxuu soo waday gabadhaan uu soo waday bes kadib inta markii la keenay gabadhii adiga way xanuunsatay waaliye isku bedeshay sheekadii gabadhii markay isku dhax yaacday kadib adi quraana la saaray ayaana istaalka lagu haay istaalka waxay dheen maskaxda iskaaga dardarsoontay gabadhaan waxba kama qaban karno abgaali shaqal way fariisteen gabadhan oo xanuunsatay oo gabadha arooska darteeda loo dilo abgaal waxa la dhahay maxay ahaatooday xaqeeda ma sheegan karto qof iska xanuunsan waaye adiga sida xaalka dhaqanka magaalada ka jiro loo dhaqmay sidii faataxada lagu kala aqristay maadaama gabadha xanuunsan aysan hadli karin ka bacdi gabadhi way xanuunsaneed waa la wada Soomaaliya la geeyay cunug yare dhashay waa laga reeb cunugta hadda way dhimatabo adiga hadda dhimataa maqlooya cunugta saqiirta kadib gabadha hooyadeeda loo geeyay ilmaheedii hooyadeeda loo geeyay wili Soomaaliya kuma qantaa maba la soo celininbo wiilka markuu yimiday ka bacdi ma oosan laaban miya intaas ka badan waxba kama ogi gabadha marka caaw iyadoo TikTok dhex joogta arke oo xaqa macnaha maybe faataxada soo baxda miya ma aqaan lacaga la iga raba iyo waxaas intaas hadda arkooya ma garat السلام عليكم. وحاكل أنت وقدرتا لميسي وحاكل أنت وقدرتا وحيد هذي أروسكي جيفكي فدقي لعكتي سالة واستا إعلانك اللي إيه صار فيه إعلانك $10 حتى لقوم صار $10 حتى لقوم صار كامل شيء وديني هذا. السلام عليكم. وعصرنا فهمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذا هلا لبيه هالبا إنه رنا يا كل وحي فاميلي دحمر يجي دحتال لبدا إسقاي مقرت أنا قلت وحمانا مركا قولك سوقنا قبل وحا كنري وحينا دحمري أنك حلينا قولك كسودك ويل كان واصله هذا الني سد الرق وواحد ذكران سكول هذا المقرت وحنا قبلها شيء جيان يوحنا لبونبوننا وحكم الجرو كود ويل واصله هذا أنك تلفونك يسوي عادي أول شيء كيسني وحداني أرنت أساسا أجرتا وحن لبونبوننا وحكم الجرو قبل خلاف حتى لحظة مسوقنا وحدها قبل أنا نكسك عدنا هاي أيديدن أو ماشى دجال كودن اللي فيس ما قرت قبل وحلا ذاكرة كيس أما يسا يا هاي هددن هدار بتد أنا جا كلها الله يا هالمرفالو يسود لمبركيا كوسينيا وصاب إنما رويلك وقوة عيا والله ولا هالنا هاي إن وقوة صدر صدق فلو بعد صدر أنا بكسير عبد الله دارة تتويلك وقوة هنا لمبركيس هاي يصاد ويلك لمبركيس يصاد ما الله ذكر ويلك عبد الله المر مقول هذه كرادي هذا ما يسوى لا لأن أنا أصلا
Soomaalina gabadha hadda wax ku agtahoonaysay wiilku kiradayga ma bixiyo iyo waxa Soomaaliyan horta waa run Ilaahay baa iga sareeyo wayse qaba inaana wiilkaas ergu dhaana been ka sheegin wuxuu dhaa kirada kama bixin waana runteed gabadha 9 biloodna ma arkin waana wax run isaga afkiisa ka dhaay gabadha waxay sheegayso dhan waa sax u dhahay laakiin isaga wuxuu ku agtishoonay oo ku ciilis baday waxa waaye gabadhaas qolkay soo kortay aabahay oo dhikar qaba la caayay iyo hooyaday la wacay waxaan ku nidhi brother naga raaleehow anaga qolka markii noo soo sheer gareeyay waa galay waa la hadlay gabadha soo deg wixii aabaha caayay ama hooyada caayay deeana may maqlaysaan gabdha iyo wiilal may maqlaysaan lamiis jeelani walaalahayga lama taabtaan deeqtijiye dhammaan dareen qalanjo bilyan dhaan dhammaan gabdha wiilkaana la soo hadlaya howshiin iska wata labadeena bal ani ninkaana isla hadlayno niyow lamiisi abaayo adin numberka hadaa hayso ii soo dir Abdullah maqal ma jira hadaan soo madaxweyne waa lagu maqlaa Abdullah Yarmi maqle Abdullah kala hal mar Abdullah Yarmi maqasha baay waa hadle aboowe ibrayaro wiilka diris la oo akhbaarta dhan ku siinayaan ku soo qabanaa wiilka inta waxaan hadal inta fiican ay sheegay shalayna gabadhii wiilku waa la istoontay odayaal baa meesha jooga haddii dhib dhacane odayaal baa ka wada hadlay dhibka maanta meesha yaallaa waxay tahay yaa hota tiktoka yimid dhibaatadana haysato soomaali runtii kuma sheegto waraymaada reyaalo odayaala meesha jooga ama faataxa la kala qaato haddii gabar la doonanayana waa la kala doontay haddii dhib dhacana waa la xaliyo faataxa la qaatay dhibaatada tiktoka maanta noo timid ee hadda meeshan soo istaagtay yaa hota dembigaa leh markaa baxaysaan adiga Cabdullaahi iyo wiilka kale oo adeerkii asagana waxaan rabaa dhibaatada qofka keenay inaad qabataan hota abta anaaba kuu sheegay Soomaha gabadha tiktok soo gashay waa gabadh annaka nala dhalatay annaka markiisa la igu soo sheer gareeyay anaa soo galay waxaan ku yiri abay family arintiisa tiktok in laga hadlo ma fiicno dadkan waxay rabaan wax ka soo gala faa'iido ka raadinaya soo deg gabadha way timid laakiin waa soo dejinay Soomaa wixii dhacay ka hor intaan soo galin abuu shiiqaal booyo gabadha kirada igama bixiyay ma arinta gabadha ku duulay mise ninka ku dhahay intaas in dadka rabaa inay fahmaan ani isaga weydiiyaan kula heebe waxaan ku dhaal abti waxaan ma jira haayo dhahay way jiraan laakiin waxaan u bixin waayo dhahay kirada attack bal igu sameeyay attack ayaa kugu sameeyay dad qabiilka sheekhaal ka socda ma kugu sameeyay may gabar buu ii sheegay hadda gabadha magaceedu waan laacsanahay oo saas darteed ba u bixin waayay shiiqaal boy waxa ii weydiisaa lacagta cilaanka iyo lacagtii taajka iyo sariirta iyo fadhiga iyo gabadha say sheegaysa wiilka run miyaa uu dhahay oo deen may ahayd cilaan saarka abgaal ma iska dhiibi waayeen okay may reer aanan u gufin ma jeclin gabadha waxay sheegaysaa $100 oo cilaan saara la igu leeyahay ee maxaa jira wuxuu ugu dhahay aboo lacagtaas waa dhiibay laakiin gabadha iyada wax kala rabta ee wax cilaan saarona lagu leeyahay ma jirto ee gabadha $100 lagu leeyahay boqolkaas ma alaabta oo deynta ay sheegtay gabadha ay tiri alaab deyna la igu guursaday meesha Yurub ma ahan South Africa la dhahaa kaarna lama marsado kaasha qof walba lagu guursadaa adduunkana waxa la dhahaa intuusan dhib qaba qaylin dheefaa qaba qaylimay dhii jireen Soomaalida gabadhan xaqay faataxada ay qaateen ayaga shiiqaal inta soo baxdeena faataxa qaldan keenteen gabadho waalan oo sare oo geed isbitaal كالبري ما جيفتو كبعد إذا كيا سود عوتين كيرا كهالسي نف نوم بليون داري لميس مي مقلة هبرير لميس ويلك ولا الكيسة هوس جوجو لميس إيه مقل هبرير ويلك ولا الكيسة هوس جوجو بقادرة وقرب قرال وكوس وقروات سوق بهدارت أنا حتى إدجي لكن ويلك ولا الكيسة سوق ولا الكيسة هو أبا إبرة هذا عبد القادر ثيار وهبر عبد الله وقبلنا هذا لما فينا هذا نبي هذا شيقال وأنا بكا قبضت قبل موت قلي ويلش هاللود يا إبرة يا هذا أنا بقول إن هذا المشي بوقو قبلنا هذا أوكي شيقال ما دمست هذا لما قبل ما سوق سينا ما وحى قدر سنقلت وقدر سنة سبرادر وحياة فقاد لكن هل جوجيو أفلقاد قف أفلقاد ديمه مني اللي لسه أفلقاد دين وحوا أفلقاد أعرفنا وحوا هذا كارت شمينه
horto tan jirtaa waxay tahay runta in la isku sheegaa fiican gabadhaas toosaa loo aroosay sidii gabar loo aroosi jiraa loo aroosay ma fahanteen reeraa la degsaday iyadoo reerka ku jirtaana dagaalkan dhaca familiga stilna waxa meesha taagan waa dagaalka waxay ku leeyihiin faataxo gabar umula oo la dilay isbitaal inta la gelsheen 2 bilood kaniini hurdo la siinaayay iyo cirbada lagu siixinaayay haw faataxo see macquul u tahay tan labaad gabadha cideeriya inta ka dartay Soomaaliya la geeyay hadda Kenya joogta Turkiya loo wadaa daaweyna loo wadaa dhibka dadka geystana waa idinka waxa aan la qeyliyaysin oo caaway hadalkan ka baxo هذا هذا سؤالك ويديو قبل اللي دليا إلا هذا ka baxo arabti weydii kaaga baxo hada darabtee waxa ku soo qaadir wax saaxir sheekadu waxay iimareysay gabadhan Soomaaliya la geeyay hadda Kenya joogta Turkiya loo wadaa faataxa la dhiibaa dhuhaysa faataxa dil dhiibad hadda gabadhiin idinka maxay TikTok u imaaday tan labaad maxaa dadka loo dacaydeenaa Ethiopian deyn laga qaataa deyn kule naag cilaan ma naag cilaana deyn qof ku yeelan karto aroosa yeyta qofta deyn tan labaad Ethiopian soo deyn ku soo Soomaaliya deyn anaga ku nool oo ilaa iyo maxay ahday 8 sano joogno say Soomaaliyo Ethiopian deyn u siinaa qof su'aashan bi adii deyn la dhiibana nin raga deyn soo qaatee maxaa ka galay gabadhaas oo ka qusay waa su'aal meesha taal marka waxa rabtay weydii hadda weydii su'aasha هذا ولا الكاتين كلا الله أعلم لكن أنا ويلك توصى ولا هذا سؤال والبسات أنا ويدي أنا كلا حشونين ما قلت تعمرك ويلك إنه سؤال والبوتوس كاجي جوابي إلى أنا كل حاوي دين ورا نقيس مكتب هو ده إبليس هو بلا يا بايو عبد الله يرأي إبراء ويلك شيطان هلا يا وحي قبل مور هسي قلنا أنا قبلها هلا ما في عنو أوتي فلاور صادر سكاسو أنا لو سوق أنا أبا ويلك ما سوق ما كنت أوتي فالمر هذا الرالية قبل قل كيس كله لمن ساحل يدي بولالي أما ضدك سوق أبو ويلك ألعاب صراحة حتى يسوق أبو كده باي أوتي فالمر سوق أبو فضلا أوتي فلاور صادر فالمر بهاشي لميس سوق أبو ماشي عارض فير تيك توك على قبل يرجع أنتم مرة واسمين سؤال والبول ودويدين إن رالك وحطة قدام عرض الدفيس. أنا نقول إحترام ويلش ودايم ما هو ده هطلعني قبلين مود كلام الدكتور تيك لدو. نقول إحترام ويلش ودايم ما هو. أوتي مود قلب وعدك فوق نقنا هذا المركب شقال بوي هذا شقال بوي هذا قبلين هو صدق إنسان مركبان ويلش ما يكون وداينين هذا. فضلا وحي قبل شرفت ذا العليو مورك ورجلا مرك ويلكاس أنا لا برادر أنا ورت ويلكاس من والله لميس يقال بو سلفتيس وعباك قلدن قبلها أفارود كبح نوع صهدا أي قبل ما صهدا القاضي قبلها أنا قبل كمارن قبلها أنا هل نام كورادي واحد مفهم قال واحد سؤال هاي موضوع وقطعه هذا ظلم ما قناه هذا لفتاله معك غلط ظلم كمارن أنا قبلها أنا جواب ما قال سيبليس نو هالمريك هذه ما يصير هالمر لميس هالمر مودي شغال بوي كيري قبلها أنا جاي نلا دشتن ماشي نو سارني وساران عدد دونا وهذا ثلاثة كورة يقاله قبلها أنا جاي دشتن ماشي نو سارني وساران وحرتي كلا هذا أو كلا وحرتي كلا هذا ما مود كلا قف سوكلو هاي أوكي شغال بوي هذا كسكر أنا إبين قيمنا يسوق مركا باي شغال بوي كازن كيبي هذه هالمر نيو هالمر horta waxa laga dhawaajaa oo dhan waxa lagu hayaa lacag la bixiyay meera la dhigay saan waaye horta niyo how markii dadka xidid ay noqdaan wixii la bixiyo inta markaas joogto ma marxaati ka noqon karta moogta teeda kalena yarka su'aasha ay weydiiyaa waxay ahayd warniyahow meherkaana qabsatay wuxuu dhahay isaga afkiisa iga dhahay xitaa waa cadeen hadda keeni karaa isaga afkiisa iga dhahay niyahow wax ii kaada cabdiqaadir waa cadeena heeskeesaybo ii kaadi de muud galde okay isaga afkiisa ka dhahay warniyahow aniga reerkaasa igu taakuleeyeen gabadha reerkay ka dhalatay ayaa igu taakuleeyeen in arooskaas uu qabsoomo laakiin ma aqaan meesha laga keenay lacag la bixiyay iyo inta lagala dhacay iyo ninkan hadda Ibrahim iyo wuxuu waday iyo meesha lacag la bixiyay iyo ma taalo baraada hadaa rabto in ay adeerka difaacato difaacadii anaga in walaashina difaacana
laakiin ma aha de baashi in uu dhinaca ka rarnaata ma sida ragnimo leh u hadal dee wixii meesha jiro ha laga wada hadlo taasaa gobonimo mugta teeda kale waxaa kuu soo hartay teeda kale waxaa kuu soo hartay niyow dagaalaa dhacay waa lagu kala tegay okay nin magaaladiisa joogo siduu uga maqnaan karaa 9 month xaas uu qabo xalaal u qabo su'aashaas ma idinku jira qof si nadiif ah isagoona dhinac ka rarneen iiga jawaabi kara ma idinku jira talabaad soo dhigay kaadiya ma jiraa qof dhihi kara maanta nin walba uu soo guursaday ama uu guursan doonaa laakiin 9 month sidee macquul ku tahay nin inuu xaaskiisa uga maqnaado midda labaad ay weydiinayaan waxay tahay waxaa dhahdeen gabdhaha isdilay halkaas ba noo dhig oo teeda waa loo soo noqonaye laakiin gabadhan waxa meesha keena waxay tahay inay lacag qaadato ma ahane dee in adeeradeeda joogo anaa joogo sheekhaal booya joogo raggi la mid ah joogo haddii lacag la dhahana $1 million la dul dhigi karaa lacag meesha uma imaane waxay u imaadeen in ninkaas laga furo hadalkiis ma saarna mugta in meeshaas waxay u imaadeen in ninkaas laga furo ninka yaa ku dara ma kala furaade horikaadi horta adiga qaadir waa wiilka walaalkiisa hadalka la carraysiinay maadkii su'aalahaygan dhamaysan adkaysiyeesa siinaya isuga walaalow adigana wiilka hadlayo shiiqaalow soo gaabi anaa gabadha qolka iska waa soo dhigay wixiina waa soo dhigay adkaysta de waa soo dhigay waa idin siina muudkaas idin taabsana laakiin idin dhameeyo okay ta labaada waxay tahay waxaa maanta dhan waxaa lagu soo celcelinayaa warniyahow $30,000 ka bixine $30,000 ka bixinaysiin maxay tahay $30,000 meesha looga bixiyay cidda ka bixisa ayda ka rabnaa waana idin soo kufiyay hadalkaas sii daayay marka boontiya ka hadasho wiilka walaalkiis wiilka qofka hadlay abgaalo hal qof soo bixi hadlo Abduqaadir ku soco Abduqaadir ay muudka gal intiin gal marka hadal Abduqaadir soo bax hadal bayo hadal ku soco horto nin ina isqawo isdagaalan koodi hoolka alaabta guriga kalidiisa waxaa dhan lacagti sleepka ku wada baxsho haya baahida jirtana nin inaag isdagaalay ama nin inaag isqabo dhexdooda anaga ka shakeyna ma ahanba halka qalada gabartu qaldanta waxa waay ninkeedii iidu wixii ka dhaqay personal issues is their own problem wax oo alaab lacagteeda oo lagu leeyahay ma jirto elaan ay saaratan that's I don't know waxaas waxa aniga uga jawaabi karo su'aasheeda 9 month bill lama siin taas isaga ka jawaabi karo cid kale ku jawaabi karta ma laha waxaan ka baraxay mar raba aniga dhimalaan fiiri aniga ninka naagta qabo waa walaalkay ilna shoodi haddii asiga dhaqaal xumo hayso aniga la dhasho dhigi karaa naagta ma biila kara iyo biil waa u biili karaa dhib ma jiro wax labadooda problem ka dhaxeeyo oo wax ku siisa laayahay ama nin naag maa ninkeeda lacag qaada la bema la isku sheega naag ninkeeda lacag ma qaadi weyso bo lacag ninka waa shaqaystaa kibtoonona joogaa kaale intii soo guur intii la soo dagaal dhahay iyada aan rabin marka qof adiga ninka aan rabin ba say ku bilay adan bilay naag adigu rabin meesha ugu dagaanay ay mudgal hal su'aalan ka weydiinaya halkaas ka jawaab hal brother hal su'aalan ka weydiinaya adan xumani ogeyn horta nin baataan adana fiiri marar badan oo lacag loo soo diray celisaa jirto marar badan oo lacag loo soo diray waxa soo dhaana ku hay cadeymadooda kulaaba wiilka ana la hadlaan kulaaba dhageysan la hal mar kiradaas uu sheegayo waa weydiyo waxaan ku brother gabadhaada qaba ama dagaal ama hays dagaalina gabadhaas aqalkaas aday xaaskaaga tahay ilaahay baa ku baneeyay xalaal ku qabta ilaahu ma istagaashiin ma maad ku kala tagtiin ama aad ka maqnaatid xanaaq aad uga maqnaatid kiradaas aqalkaas adaa laga leeyahay no matter what happened it doesn't matter where you are you might not live with her but still gabadhaas aday xalaashaday aday xalaal ku tahay ilaahay baa ku xalaalay ilaahu ma isku dhacday aqalkayga bax ku tiraahdo gabadhaas kiradeeda laga rabaa aan ku waa weydii qaladka anuu iga dhuxu dhahay
وأنا رالي قلنا هذا واحد ديارته aan siinaa u dhahay annagoo koolka wala saaray soo hayla iman waa istagaalan ilaa waxaaskayga ma istagaalna maanta magaalo kale maan tago aqalka kiradiisa anaa ligu leeyahay familiyada anaa ka doontay anaa la isoo siiyey anaa soo meersaday ilaa ma iga buris aqalka gabadhaas waajib waxay uga cuntadeeda aqalkeeda inaan bixiyo waa gabadh xalaal ku ah xaraan kuma qabtid xalaal hadda ii tahay maxaa ana oo kibton degan ma darban kiri ku bixiya ma kibton imaato okay su'aala ku weydiinaya tusaale ahaan gabadhaada isku dhacdeen magaalo deganta ciyaal ku haysa ciyaalka ma biilanaysaadii haddaad ragnimada wax ka taqaanid Abdulqaadirow one minute هاي كسر shaqaal boy haddaa qodob rabtid ka hadal jawaabteeda waa lagu siinaa Cabdiqaadir laba qof la hadlin oo tayarkaas la dhaha la hadal shiiqaal wuxuu hadla ibra hadlay waa run ha ku soco shiiqaal wuxuu waxa kale oo idin soo haray idinka Soomaaliya aniga ma inta noo timaadina nagu dul qubaysaysiin waxay ratiin ma aniga naga dhaadhiciisiin adeer aniga hadda meeshan taagano ibra hadaan na qabo meesha aniga rabay igula noolaanay sababtoo anaa qabo anaa fangareyno idimi biiloys ma fahant ninkan darbanow deganay wuu ku qabay xaaskiisa wuu ka tagay Kipton uu tagay kaala meeshaan iskula noolaano noo way dhahday so waa in laga aamusaa waxa ku soo haray ninka haduu naagta furayn maxay ahaday adeer aniga hadda qarash ugu bixiyo anise mudgal adeer aniga hadda qarash ugu bixiyo xaliimo oo ana ku qabo waa ana biilka bixino waa ina meesha raba ila degta ama ila degay anama ku furayno that is all wax kale ma jiro okay hal waadisiina ii kaadiyey marka niyo horta aniga gabadha walaashay intaa meeshaas aniga intaa tegey ninkaa sheekaal booya intuu tegey meesha gabadha intuu ka dejiyey aawadana gabadha si gobonimo lahaa usoo dhaqana ma fahad laakiin haddii ay noqoto inay bahasha noqoto hadday noqoto inaad falanqeysaan oo bahasha ee falanqa tagto oo la diido in sidii ee bahasha marka hore ku socotay iyo jawga annagoo weliba qaladkaas yacni qalad meesha taagan yahay gobonimo intaa sameynana wiilkiisa sharaf lahaa oo la hadalnay haddii aad diidaan taas aad rabtaan inaad uunsataanna dee adeer qof walba meeshaan tigtaagaa lahaa mid walba qaanadiisa ka uunsada marka haddii ay noqotana in sidii gobonimo leh wax adeer macaan gobonimada annaga ilaa hadda annaga qof aflagaadeena ma laha inoo kaadide ilaa hadda annaga qof aflagaadeena ma laha haddii ay noqoto aflagaadana dee adeer meesha la rabaha la iskala dhaco haddii ay noqoto in wax la xaliyana dee annaga wiilkaas shalay dee wiil annaga xididna la noqday uu ahaa waxaa waa ilaa hadda cid aflagaadeysa ama nin sheeqaalo aflagaadeeyna ma jirin haddii ay noqoto inaad dhaadaan marka waxaa waaye gabadhiya saana adeer dee wiilkii waa saana anigana waa dhihi karaayo ka badan codada intaa daaro balaayo walba waa samayn karnaa marka hal is ixtiraamo annaga baasa si sharaf lahaa ku galnay si gobonimo lahaa ku galnay wiilkaana markhaati ka ah markhaatiga nool inaan si gobonimo ula hadalnay inayna cidna ku buuqin almost 1 hour and that minute call wada saarneen annagoo 5 qof 6 qof si gobonimo lahaa u wada hadalnay dee isagoona hadal naga tabanayno inuu baxay haddii idinka marka aad rabtaan inaad qol ku shidataan ama qolal ama mawduuc uga dhigataan horta idinkeedin jirtaa laakiin haddii ay baashan tahay in gobonimo lagu celiyo oo sidii marka hore ay taagneed lagu celiyana welcome way soo dhaweynaynaa horna wada arooskan aniga joog dariska one time wax yar la ala Cabdiqaadir inaad yar waa ku salaam Cabdiqaadir si fiican labada nin inta yar wax yar shiiyo horta labadiina sheekaal baa la hadlaya haddaan rabtaan horta xaal gabadhii raggii baxshay iyo raggii ka doonay meeshii bay wada joogaan haddii danu ama dhib dhacana dadka xalin lahaa xaggay joogaan waa ku weydiiyey otow idinkoo qaylina horta dhibaatada yaa iskale meeshan ka socota idinkaa leh gabadhiina halkaabay timid ma garat aniguna reerku waa la hadlay ninka idinla hadlayana ninka gabadhayda ka qabo inaa adeerkiis waay inaa inta imaataan oo adigu dembi aad sheegataan oo dhibaato in laydinku haya aad sheegataan oo aad tidhaahdaan nimayow halkan ha keenina annagu ma keenin horta idinkaa keenay horta qofku wuxuu inuu qaataa la rabaa garta buugta tiktok waxa keenay ilmaada ree waa idinka horta dembiga koowaad qaata oo meeshaan idinkaa gabadhiini timid anugu ma dhahayo gabadhii iyo wiilkii iyo hebel iyo ma dhahaye horta dembiga idinkaa leh idinkaa meeshaa soo qabsaday
idinkaa barxadda soo barraxay idinkaa haddii dhibaatada tiktok taalla maanta ee laga hadlayaba qofka keena waa idinkaan dembiga idiin saaraya anuu gabadha uma saarayo idinkuna inta soo qabsateen meeshaan ka lahaan leedeen war adigu waa soo fara dheeraateen war ceeb weeye sidaane war nimayahow qaladku waa dhacay bal aan ka haajoonno ama wiilka gooni ula hadla ama gabadha gooni ula hadla howl idinku xaliskeeda idinka rabto weye ma ahane howl annagu aad dib noogu soo celisaan oo halkaa annagu wiilkeenna hadduu imaan lahaa uu ku xadgudbi lahaa reer ama magac gabadhiina halkaabay ka sheegto hoos baan fadhinay reer dhan magacooday sheegtay wiilkii qabay iska intay gudubtay bay reerihii u gudubtay haddana halkaabaa waxaa la fadhisay niman yahow haddaa qalad iyo hebel iyo waa annaguna xaggaan taageeraya annaguna xaggaa taageerayna indha adeeg waa raasumaal baa maqlay